السلام عليكم هبين وناكسن مال وناكسن وقت والبقي كوتا وناكسن سودا وادا أصحابتا كعمة فرن قلبي فرن كسودا وادا فضلا هذا نقول عصبتا وحن كلنا سبسكرايب كنا صار شيرتا هذا هورنو لجوكتنا لايكتا يوم سنتين وحين رجينا نقول عفمات طبعا صون نقدر إذا نقول عفمات قبتين انت حنوصلنا حنوك الله كتاضا يعني لنا هاي مانتا أم بعاوة أم وقت قدون تقوى تو برامج بريها بالشغل الإسلام وريك هاي قبر فلانة ده مجاجليستا وعانة أو ذا التقانين بريها صومالي هذا الكتور توراين قبرتي هذا الكي سيدي وحب عن هذا لك صوب حسي بل نلد داوضا أدوغ لا يريدو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما ولد السلام يا الصوماليين مركز تدافع عالم كجوجتان waxaa jirtay video aan leeyahay oo la wareejinayay baraha bulshada aniga loogada la igu soo diray la igu soo mishin gareynay videogaas aan doonaynaa faahfaahin idinka siiyo. Videogaas waxa weeye video taleefankayga laga shubtay sidoo kaliya tan maaha dhaatadeedii professiga ahayd oo dhan ayaa taleefankayga laga shubtay oo taleefankayga gacanta ayaa la isticmaalayay. waxa maxay ahayd hawshan ay igu socotay 2020kii bishii shanaad ayay ku bilaabantay. iminkana waxa la joogaa 2021kii bishii saddexaad waxay igu socotay muddo 10 bilood laga joogo iminka. in badan waan isku dayay inaan tixraac ku sameeyo ama aan dabagalo ama aan helo qofka hawsha wada laakiin iimay suurtagelin. sheekadani waxa igaga bilaabantay WhatsApp laga soo hanjabi jiray markii dambe waxa la wadaagay waxyaabihii barafsiga ahaaniga taleefankayga ku jiray ayaa la soo diray oo la igu soo hanjabay. markaa kadib waxaan la xiriiray dadkii aan islahaa maxay ahayd aan kaarkii shirkaddan kaarkeeda isticmaalayay ayaan la xiriiray. numberkii la iga soo hanjabay WhatsApp-ka ahaa ayaan la xiriiray dadaan shirkadda Telesom ka garnay way kaarkan WhatsApp ku isticmaalaa kaar Telesom aan ku isticmaali jiray waqtigaas. markaa dadkii markaan la xiriiray inan baan la xiriiray Telesom ka garanayay inankii wuxuu igu yiri baaqay kaarkan lacag laguma shubanin cid lagama wicin maxay ahayd wax macluumaad oo ka tagay oo lagu heli karaa ama lagu dabageli karaa ma jirto. sheekada markii halka maraysay waxa hadana maalmo kadib la wadaagay macluumaadkayga saadka ama maxay dadka inta saadka fahansanay waxa weeyaan kaarka markaad furanayso qaybta lacagta u furanaysid waxa laga buuxinayaa information dhaxalkii cidda dhaxalkaaga leh inaayadaada dhammaystiran da'daada waxaasoo dhan oo kale ay Telesomka mas'uul ka tahay qofka ka buuxisay privacy-giisa ayay mas'uul ka tahay ayaa la soo diray. isla inankii baan ku celiyay ku walaal waxaan baa hadana la soo diray inankii wuxuu igu waarin culus ee hibaaqay waan maxay ahayd waan dabagelaya oo dadka iga sareeya ee hawsha shaqada kule ayaan la xiriiray arrinka la socodsiinaya. markaa kadib sidoo jawaab ka sugayay jawaabtii igu soo celiyay waxay noqotay hibaaq waxaan waxba lagama qaban karo waa jin iyo waxyaabahaas ee kaarkiis ka bedel. أنا هذا الكيس بنقاطي ما دام وقفكي وقف يجيبهم دلوا شركة دوسة وتوجي ماشي. إثيوبيا تلاقي كان بابا كسوفرتي وحنا قصة السواد سبكي سيدي ورجوا الكدر تودت كي ببلوغ الساري يقول شري عليك يقول إني باقي وانا بلوغتي هذا أنا كده واحد اسمه أصحاب كده واحد لو شركريني يحب رفسي جاها بس النمبر كي كانوا وانا استعمالي لو شركريني أنا لو قف كم أركيه لكن قف كي مركب أركو أما ويسكري شو دي سوق هذا نمبر واحد لو قدر وكي كان أنا استعمالي إثيوبيا كسوفرتي. markaa sheekada halka ay mareysay waa ban iska waxa iska joojiyay WhatsApp oo dhan ban iska joojiyay waan iska daayay. markii WhatsApp-kayga oo dhan saa lagu wareegay ana faraha uga qaaday qofkii maadaama aan anigu maxay ahayd dad ay jiraan dad maxay ahayd aan xil isku leenahay dimaashiyada oo kala walaalahay qaba cid walba oo maxay ahayd WhatsApp-kayga ugu jirta la wadaagay anigu privacy-gay WhatsApp-ka saasan faraha kaga qaaday kadib waan maxay ahayd WhatsApp waan ka nastay haddana Facebook-gayga waa la soo dhigtay. Facebook-gayga ayaan arkay maalin sano joogay waxaan ka Facebook-gayga oo aniga la iga saaray la iga loo gareeyay galban siri ma jiro waxa dhan waa khalad bal igu waxa dhan waa maxay geliso dhan waa khalad. marka dad baan la xiriiraan sirida waxaan aqoon bay u leeyahay ama ay tii asxaabtayda dadkii bay isku dayeen soo celiya laakiin waxay ii sheegeen ay ogaadeen in numberkaygina laga saaray gmail-kii ugu jirana laga saaray maadaama qofkan si uu awood u leeyahay taleefankayga saan u isticmaalay si lamid ah inuu isticmaalo. marka Facebook baan hadana sidii faraha kaga qaaday oo iska daayay muddo iska joogay Facebook cusub ma furanin hadana habeen baan saaray subaxdii markaan soo toosay ayaan Instagram-kayga xiray markii Instagram-kaygi ayaan hadana sidii si laga saxaabti ku celiyay yana isla sidii way igu jawaabeen isla sidii Facebook-on baa laga dhigay farahan ka qaaday.
marka social media saas baan kaga baxay oo aan maxay ahayd wax walba la wareegay marka laga yimaado Snapchat-ka iyo TikTok-ka oo asaga muhiim u ah qofka dadkan isticmaalaya ama iga daba shaqeynaya ee daba jira aan muhiim aan u maleeynaa muhiim u ahayn ayaa ii soo haray oo maxay ahayd labadiisii sidii igu jireen waxaan markaa isticmaalayay haddana WhatsApp business ama meheradayda nambarkeeda oo meherada u gaar oo aan ahay nambar aan sideeda u isticmaalo iyo Instagram-ka meherada ayagana waa la igala soo hadlayo waxba la iga soo diray waa la iga soo hanjabay halkan jooga la soo sheegay marka kadib saas marka aan iska isticmaalayo WhatsApp-kii meherada oo meherada ahaan u isticmaalaya laakiin aan isticmaalin dadkii asxaabteedii kale ayaan maxay ahayd koolkayga caadiga ah taleefankayga caadiga ee gacanta qof hadaan waco ama uu soo waco ama qofka SMS caadi iyo koolka taleefanka gacanta aan u diro qofkii waxa la wadaagay wixii privacy-ga ee uu qofkani dadkani hayeen ayaa la wadaagay qofkii baa dadkii un baa igu oranay waxaasana loo soo diray waana qofkan isla markaa waco ama aan ku save gareeyo contacts-kayga ayaa maxay ahayd laga share gareynay halkaa markii marisay maxay ahayd aan arkay inay arrintu faraha ka baxday ayaan maxay ahayd waxaan si Apple ID iska bedelay ayaa waxaan tagay meel shirkad halkan aan maxay ahayd macmiil lahay oo iPhone-ada waxa hagaajisa dadka badankooduna waxay ii sheegeen inay Apple ID ga noqon karto oo taleefanka iPhone baan inta badan isticmaalay iPhone-kana security-giisu adag yahay baa la yiraahdaa marka inankii inamadii u tagay waxaan ku dhigay Apple ID ga naga bedel waa la iga bedelay 3 cisho markaan isticmaalay Apple ID gi ayaaba taleefankii meheradda WhatsApp-keedii la iga soo diray screenshot igu WhatsApp waan haynaa Apple ID ga cusubna iyo password-ka oo wada socda oo aan xaqiiqo ka khaldanayn baa la soo diray markaan arkay Apple ID ga haddana in la soo dirayo oo markii Apple ID ga cusbaan samaystay la helay ayaa waxaan la xiriiray xarunta CID-da ee Somaliland ku taala magaalada Hargeysa maasha Allah maxay yeedii mahadal ka gaadho si fiican bay soo dhaweeyay si wanaagsan bay la dhaqmeen cabashadeedii baan u gudbistay maxay ahayd way wareysteen arrintu igu bilaabmay si wuxuu dhacay baan uga waramay waxaan u sheegay in macluumaadkayga saadka yaalay maxay ahayd leela wadaagay hataa oo aan cid kale awood u lahayn inay ila wadaagto qof telefoonka jooga mooyaane computer baa la iga soo sawiray marka siday maxay ahayd ay saas dhacday waxaan sheegay inaan la xiriiray shirkadda oo inankaygu yiri waxaan mala waajin iska bedel karta marka waxay u baahdeen inankii ayaguna wareystaan inankiiba si ay dhida loogu yeeray maxay ahayd waa la wareystay xiriirantana arrimahan ku soo gudbisatay haa uu yiri waxaad uga qaban weeyay aad u tiri waajin wuxuu laba nin ayuu nambarradoodii magacyadoodii meesha ku reebay labada nin oo meesha arrinka maxay ahayd u xil saaran baa la hadlay waxay ugu yiraahdeen labadii nin way warwareejiyeen waxbaan qabanaynaa bay markuu yiraahdeen marka anna sidaa darteed baan hibaaqsaa ugu roon ku samaysay aduu si ay dhidi sidii ugu jirnay aniguna safar baan yara galay waan maxay ahayd waan yara mashquulay inamadiina horta waxay ii sheegeen mar walba si fiican bay mar walba ugu jireen laakiin waxay ii sheegeen inay awood u lahayn shirkadii WhatsApp inay awood u lahayn wadanka in wax laga qabto aan WhatsApp-ka laga lahayn Somaliland kaarkiina aan loo isticmaalin wax tixraac lagu sameeyo marka arrintii ayadoo sidii loogu jiray aan safar galay markaan safar galay intaan wada safarka galin Facebook cusub baan samaystay taleefankayga inaan ka galay waan ka ilaaliyay ka calsiki ayaan ku samaystay ayaan maxay idin ka geli jiray Facebook-gii ayaa la iga soo raadiyay la igala soo hadlay la iga soo hanjabay Facebook kasta oo qofkaas uu igala soo hadlo ana waa iska balow gareynay oo markasta uma hanjaxin waayo qofka maanta tirsaday waxyaabaha noocaasa ii daba galay wanaag iimu haynin ama maanta waa wax gacan binaadan iga galay oo kalsooni kuma qabo inaan iga baahaynin oo aanay ummadda la horgeynaynin qofka maanta waxaa iga dirsadeen wanaag iimu haynin ama inaan maxay ama uu wanaag iga helo iyo jiljileec markasta maxay ka duulay ama aan diiday maalmo kadib waxaan go'aansaday inaan taleefankayga oo dhan isaga u tuuro maadaama aan maxay wax ii baxsadaba aan waayay oo aan maxay taleefan cusub iska dalbado Instagram cusub samaysto Facebook-ga iska ugu jiray kula soo wareego WhatsApp aan wada kaba laga lahayn aan samaysto markuu meel igala hadlo waayay waa kiina meel walba iska moosay iga soo galay wuxuu sameeyay wuxuu la hadlay dadkii madaxda wada shaqeynayay sida agaasimaha University fee ama director filmaanta nidii soo gudbino iyo dadka asxaabtayda oo ku yiri maxay heeday inta sawirada walaashay hibaaq sida dhageysatay amba aad daawateen sidii wixii ay u dhaceen taleefankooda in la jabsaday oo lagala baxay filmo badan oo baraha bulshada la wareejinayay ee noo sheegtay qofkaasna waxaan qiyaasaynaa inuu Soomaaliyeed jirin horta
amba dhinaca shirkadda ka yimaado amba dhinaca abalka ka yimaado horta meel dheer ma jiro tuuga direct waa qof ku yaqaano walaashin qof yaqaano waaye horta ibaa haba yaqaaneen waxaaba kaaga daranba maxaa la yiraahdaa waa qof by step ula socoto xaaladeeda hadda markii wixii dhammaa ka guurtay shirkadda dadkii iid la shaqeynayay filmada la jilayay direct universal oo dhinacaasi Hargeysa joogay kulli waa wacyi waxyaalay sawirada iyo wuxuu hayo macluumaadkii ayuu loo gudbiyay horta ma sha Allah horta iyadu waxaan leeyahay gabar horta adkaysi badan waaye wali ragga qaarkiisa ka adkaysi badan tahay maxaa yeelay sawirada iyo macluumaadkeedu dadka qaarkiisa hadii loo soo gudbiyo maradii tuuro lahaayeen geesinimo muujisay waxaan leenahay geesinimadaada sii wad waxaan leenahay sida ku sii socotidna waa wax fiican kartidu ma marka qaarkiis waxbay ka dhigaysaa madaxaada hawsgeynaan leenahay adoonin yahayna waa doqon hadii naag tahayna waxaan dhigi karnaa iyadana walaashin Allah soo hadeeyay laakiin waxay u badan tahay in rage oo inuu maskaxiyan u dilo qofkan doonayay walaashin hiba maskaxiyan laakiin ilaah baa maxaa xaq tusay iyada bal wax yar ku sii socon dhahna hibaaqay iyo wixii u daray gabadhaas aan u baahanay meelan kala xiraan degdeg ugu baahanahay walaal qofka markasta wuxuu rabaa inuu si physical ahaan inuu ii dilo oo maskaxda iga qabsado oo uu si physical ahaan ii waalo markasta ay sababtu tahay muu doonin habeen inaan ka nasto maalinba wax cusub inuu soo gudbiyo maalinba barafsiga uu kala reebo ana markasta waxaan ku adkaysanayaan ku calwi adeegay inaan qofka madaxayga hoos ugu geeyo oo markasta waxaan ku lahaa sababta sidaan sheegay waaye maskaxiyan uu rabay inuu u dilo iyada nafteed waa fahamtay war waxaan leenahay ilaahay umada xaq ha tuso in telefoon dadoo gashid waa xaq dar waa tuugnimada u taqaanin wax la xado oo qofka laga xado wax walba oo amaano qofka ku ah oo ka qaadatid waa tuugnimo waana xaq daro waxaan leenahay iba kartida muujisay waa aad karti u fiican biidnillahi kariim waxaan ku leenahay kula dardaarmeena adkeysiga dhabar adeega u sameey guusha adiga xaqaaga soo jiraysa insha Allah بإذن الله كريم فيديو كحيل انت كل مين بإذن الله كريم مع السلامة إن شاء الله فضلا هذا نقول عشان تعرفون كلنا سبسكرايب كنا صار هذا هرنا اللي جوتنا لايكتا شيركا انت إن شاء الله بإذن الله كريم لما تين عارف ماذا يرجينا إن شاء الله غيرنا الله نسيه مع السلامة